waxaa jiri jiray wiilka waxa uu la noolaa aabihiis, hooyadiisna waa ay dhimatay. laakiin aabihiis waxa uu soo guursaday xaas labaad, xaas kale ayuu soo guursaday. islaantaas ayuu la noolaan jiray wiilka. islaanta waxay ahayd islaan aad iyo aad u xun, wiilkana aad iyo aad u neceb. had iyo jeerna waxa ay ku diri jirtay odayga ayay ku diri jirtay, si oo maalayacnina way u qeelin jirtay asaga oo waxba aanan halaynin. sidoo kalena waa ay garaaci jirtay garaaciisan u aabayeelin, oo ilaa uu ka suuxo waa ay garaaci jirtay. maalin ayuu dembi yar galay in ay garaacda markii oo damcay, wiilkiina waa uu cararay, cagaha ayuu wax ka dayay. dibna uma uusan soo noqon, oo waddo dheer ayuu ku baxay asaga oon garanayn meel u socdo iyo meel uusan degaynin. waxa uu ku soo baxay meel duur ah oo buuro ah. waxa uu iska hoos fadhiistay geed asaga uu oynayo, meel uu wax ka bilaaba kasila gurigiina aan ku noqon karin. asaga uu oynayo ayuu cod maqlay. codkii haddii uu dhegaystay mise waaba geedkii oo dhahayo, war maxaa kugu dhacay, dhib maxaa kuu geystay, see wax kuu gaareen. aad ayuu u yaa wiilkii, waxa u sheegay dhibka qabsaday. geedkiina wiilkii waxa uu siiyey dheri, oo wuxuu yidhaahday dherigan qaado, mar alla markaad baahatid waxaad ku dhahdaa dheriyo waxaan u baahanahay raashin, waan gaajooday ee waxaan cunaa isii. wiilkii aad ayuu u farxay, dherigiisii ayuu iska soo qaatay, wuu soo baxay, meel ayuu iska degay. markuu baahdana dheriga ayuu la hadli jiray oo wuxuu dhihi jiray, dheriyow waan baahanahay. dherigana waxaa kasoo buuxsami jiray cunno kala nooc ah. wiilka aad ayuu u farxi jiray, raashinkiisa ayuu iska cuni jiray, marna ma uusan xasuusan reerkii inuu ku noqdo. muddo markay kasoo wareegtay, wiilkii waxaa ka jabay dherigii ayaa jab ka gaaray. dherigii ayuu qaaday oo waxa uu la aaday nin tumaal ah oo dheriga u sameeyo. kadib markii uu la kulmay, waxa uu yidhaahday, dherigan waxaan doonayaa in aad ii kabtid, laakiin bil shardi, ha oranin dheriyow gaajo ay hayso, raashin isii. ninkii tumaalka ahaa asaga oo la yaaban ayuu dherigii ka qaaday. markii uu sameeyeyna waa uu la hadlay, oo wuxuu yidhaahday, dheriyow raashinkan mise raashin ayaa ka buuxsamay. ninkii aad ayuu ula cajabay, wuxuuna ku fakeray inuu dherigan qaato, wiilkana u bedelo oo dheri kala siiyo. kii ayuu xaraystay, dheri kale ayuu midkii u ekaysiiyey ayuu wiilkii ku wareejiyey. wiilkiina dherigiisoo fiican markuu arkay wuu soo qaatay, oo wuxuu imaaday meeshii uu deganaa ee duurka ahaa. haddii uu la hadlay oo yidhaahday, dheriyow gaaja ay hayso, waxba waa uu ka heli waayey. wiilkii waxa uu ogaaday in la qayaanay, aad iyo aad ayuu u qaracmay, waa uu naxay. kadibna waxa uu ku noqday asaga oo oynayo geedkii. waxa uu yidhaahday, dhibkaas ayaa i qabsaday. geedkii waxa uu usoo tuuray turumbo, waxa uu ku yidhaahday, turumbadan niyahow qaado, markii aad baadid ayada afuuf, ayada raashin aad ka heli doontaa. sidii ayuu yeelay, oo raashinkii ayuu ka helay turumbadii. in cabbaar ah markii uu ku soo mooday, turumbadii ayaa ka hallowday. waxa uu yidhaahday farsamayaqaankii, hadda ka hor ayuu ku qiyaamay, ayaad u geysaa oo ku hagaajiyo, adiga carruurnimada ayay kugu dhacayaan. waxa uu ku fakeray in uu u geeyo nin tukaanla ah, ninkaas oo ah nin wanaagsan oo oday ah. ninkii ayuu u geeyey, oo waxa uu ku yidhaahday, niyow baashaan waa iga hallowday, dadkana waxaan ka baqayaa in ay iga xoogaan. maadaama oday tahay, waxaan doonayaa baashaan in ay hagaajisid, raashinaa rabaana ha ku dhihin. markii wiilkii baxay, sidii ayuu dhahay, mise raashin ayuu ka helay. odaygii ganacsatada ahaa waxa uu yidhaahday, waaba howl fudud, wuxuu u bedelay turumbadii oo tug kale ayuu siiyey. wiilkii turumbadii haddii uu qaatay oo la aaday meeshiisii, waxba waa ka heli waayey. mar saddexaad ayuu geedka u noqday, waxa uu sheegay dhibkii ay soo gaarsiiyeen dadkii uu aaminay. kadibna waxa uu soo siiyey koob ayuu soo siiyey. wuxuu yidhahday, koobkan waxaad ka heli doontaa raashin, shaah iyo wax alla waxa aad rabtid. sidii ayuu meeshii tegay, raashinkii ayuu ka dalbaday, waana uu helay. kadibna
muddo markuu joogay ayaa koobkii ka halaabay. Wuxuu yidhaahday odaygii waa tii ugu qiyaamay, farsamayaqaankiina uu ka qiyaamay. yaad aamini karta markaan. kadib wuxuu isku sheegay in uu nin professora raadsado oo tacliin leh magaaladana ka shaqeeyo si uu wax ugu qabto. nin wuxuu u tegay professora oo aad iyo aad looga dambeeyo. wuxuu yidhaahday koobkan ayaa iga halaabay. koobkan waxaan doonayaa in la iisoo sameeyo. dadkan aniga way dhacayaan markii ay sameeyaan koob inay dhahaan ma rabo. ninkii professorka ahaa markii koobkii lasoo sameeyey ayuu wuxuu yidhaahday sidii oo kale koobow maxaad haysaa? mise raashin, caano, wax walbaba waa diyaar. asagana wuxuu go-aan ku gaaray in uu koobka qarsado oo koob kala siiyo. wiilkii koobkii kale ayuu iska soo qaatay. markii uu soo baxay mise haddii uu wax su-aalayba wax ka soo baxayo malahan. asaga oynayo oo yaaban ayuu geedkii ku noqday. wuxuu yidhahday geedow aniga waan kugu soo noqday, dhibkaas ayaa heeso. booskii hooyaday oo kale ayaad ii joogtaa oo had iyo jeer way naxariisataa. geedkii wiilkii waxa uu soo siiyey ul. wuxuu yidhaahday ushaan qaado, dadkii wax kaa qaatay ula tag, waxaana ku tiraahdaa mid kasta ulay laba laaban ha oranin, ilaa uu xanuunsadana ha ka fujinin. wiilkii ushii ayuu la soo orday. soo u soo waday wuxuu u imaaday tumaalkii. wuxuu yidhaha tumaalow hushaan iyahay, haana iga oranin ulay laba laaban. kadib wiilkii markuu tegay ninkii wuxuu bilaabay in uu dhaho ulay laba laabanay maxaad haysaa? ulay laba laabanay maxaa heesaa? ushiin waxay ku garaacday, way xanuujisay oo wou qeyliyey. ulay laba laaban baas, ulay laba laaban bas. had ii jeerba waa igu sii daraysay, ilaa uu wiilkii u soo noqday oo dherigiisii uu siiyey asagana ka celiyey. kadib wuxuu u tegay ninkii odayga ahaa. wuxuu ku yidhaahday ushaan iyahay, ulay laba laabanna ha iga oranin. kadib ninkii markuu tegay asagana horey ayuu ka bilaabay ileen wax ayuu uga bartaye. kadib ushiina waxay ku bilowday garaac ilaa ay ka cawaajisay. wiilkii ayaa u soo noqday. ulay laba laaba iiday markuu dhaaf ugu sii dartaa, ilaa oo markii dambe wiilkii siiyey alaabtiisii. wiilkiina waxa uu ka ceshaday ushii. wuu baxay oo wuxuu u tegay ninkii professorka ahaa. waxa uu ku yidhaahday ushaan iyahay, ulay laba laabanna ha iga oranin. wiilkii ooma sii dhaqaaqin wax yar maqanba ulay laba laabanay wax la cuna keen ayuu ku yidhaahday. iyadana waxay ku bilowday garaac ay ku bilowday ilaa ay ka cawaajisay. wiilkii ayaa u imaaday ushii oo ninkii garaacayso. waxa uu ku yidhaahday waan kaa celinayaaye, ushii waxa ay siisaa koobkaygii. markasoo dhaho ulay laba laaba ii qalay oo ugu sii daraysay. wiilkii ushii iyo saddexdii weel wata ayaa duurkiisii ku noqday. aad iyo aad ayuu u farxay. dherigiisii, koobkiisii iyo turumbadiisiibay sidaas ayuu ku helay.